insha Allah waxaan rajaynaynaa in ururkan uu ka mid noqon doono ururada dhiirigeliya in hawsha ay wadaan engineerinka caqabadaha shaqaalaha ka haysata in researchka ay soo diyaariyeen uu noqdo maxsuul laga go'aan qaato oo goobaha ay khusayso sida dawladda oo kale amaba dhammaanteedba inay qaataan oo ay dhiirigeliyaan ururkani sida ka muuqata hawsha ay wadaan waa hawl wanaagsan oo in la dhiirigeliyo oo kor loogu qaado oo intan iyo in ka badan ba ay caroog u noqdaan ayay ahayd waxaanan iyagana dhalinyaradaasi ikhtiraacin aan leeyahay niyadjabina tani waa barbilow sida crisis-ka ka muuqato oo caqabadaha iyo waxyaabahaasi caawa ayay ka mid noqonaysaa laakiin se inaan aan la niyadjabin oon la isdhiibin oo waxay noqonaysaa halbeeg in hore loo socdo hogaamiyaasha ama madaxda Somaliland waxaan u soo jeedinayaa inay albaabada u furaan aqoonyahanka daraasaadka sameeyay oo aanay ku koobnaan hogaamintu in xafiis la dhex fadhiyo oo ay noqoto in dhalinyarada oo aan damac siyaasi lahayn laakiin raba in caqabadahan shaqaalaha ka haysata engineerka iyo wax kasta oo aqoon oo la barto oo caqabada oo jirta in la xaliyo raba in la dhiirigeliyo la soo dhaweeyo taasi baan u rajaynayaa sababtoo ah imika research-kan oo kale damac siyaasi uu ka maqan yahay ima qof dad raba in position siyaasi maaha laakiin waxay ahayd in la dhiirigeliyo insha Allah iyagana waxaan rajaynaynaa inay albaabada u furaan dhiirigeliyaan iyaga iyo kuwa la midka ee qaybaha kala duwan ee bulshada ku jira dhalinyarada engineering bartayna waxaan u soo jeedinayaa ama caqabadahaasi jirana inaan iyaga laftigoodu suuq iyo caqabadaha ka jiraan ay isu dhiibin waxa laga yaabaa in aqoonta aad baratay aan ku shaqayn oo wax kale aad ku shaqayso anigu markii ugu horeysay jaamacadda Hargeysa waxaan bartay agriculture 4 sano haddana kuma shaqayn mar kale haddana waxaan diyaariyay journalism mar dambe kuma shaqayn mar dambe waxaan diyaariyay law kuma shaqayn mar dambe waxaan diyaariyay journalism markaasaan shaqadii aan ku shaqeeyay kadibna waxaan haddana takhasuskayga masterta aan raaciyay international commercial law sharciga ganacsiga adduunka كلي هذا وحنا برتي واحد مودا إن أنا كوش قين شيرين وقت جي هراء لكن إن اللي سودي بين نرشة إلا الددالو إلا الصعدة إن واحد برتي ده عقباتها يجي الصعد تدل كان يبقى قريب كتاين هذا واحد كوش قيستي أنا المرة قار فرسدو هيلين أو قبيل كفكتر وين وياهي إن ده شركة دي أما جوابه اللي دوني إن ده كان يكش قيان قبيل ين مرحلة ده كلا أي شيران لكن إن اللي سودي بين نرشة إن عاد مير كله هدي الفرصة كهشوا أنا ده واحد برتي أنا هادين ماشى التوقيت هالشيء إن عاد كسر شقيسو هدنا التخصص كاجينا عاد إن شاء الله مركز دمد فرصة وجود واحد هالشنا أتيجي لي كرتو أنا ده سودي بينو نيجي بينو ده صار واحد صوب برتي كمش شقيسيد ده هذا ده يكتو ميل كستا أو دلكينا قف كستا وحو برتي كمش شقيو وفيرسو ما ده حدين الدولة دي ماذا goobaha ay ugu mudnaayeen in aqoon ay ahayd inay joogaan sida positionada technical-ka ah siyaasiga kama hadlay positionada siyaasiga laakiin positionada technical-ka ee mudan in aqoon lagu tago waxa jooga haday doonaan fursadaha qaar in dadkii aqoontii uu ku shaqeynayay iyo tuu bartay inay kala duwan yihiin marka taasoo kalena waa caqabado iyo gaab guud ahaan marxaladda dalka in kala sumanahay إن شاء الله شن يصدق كي سنة هراء تكتدي يتم عددا وحن رجينا إن دليرة سومالي لان إن يكوعنا دونان شن يصدق كسنة صاصعدا ولي وودا يرنهاي التانية إن كبدن بإن شاء الله وحن رجينا إن النية تبين إن الصعوتان ميل وتجالس إن شاء الله commitment كنوا مهم إنه نقف كونا نفتي سديبين إن دقالة هان فرصة إن ونقف كون يتبين وندريمنا وعقبته جوين وقت قدر اليرادة أما شمعلها الله دجانا يوم ما كسال الله دم يو عقبته جوين تتك قبصة
dhaqaaluhuna waa waxa kaliya ee qofka xor ka dhiga dhaqaaluhu waa waxa ugu muhiimsan qofku aragtidiisa ma cabiri karo hadduusan dhaqaale haysan marka inaydan idinkuna niyad jabin fursadu idinku dhaweey insha Allah de caqabada qabiilka oo weyn de marxalad imika weyn Soomaaliland xoogaa way ka gudubtaa laga yaabaa imika 4 hore caqabadaheenu ku jirnay dalka aqoonsi uu helay insha Allah de waxaan rajaynaynaa dalka aynu de aqoonsiga ama xiriirka cusub aan sameeynaa in uu fursado wacan ina siiyo de wadamo badan ama Afrika waa dhowr iyo 50 dal oo de uu ka horumarsan yahay ma hadii waxa soo dhan aqoonsadaan dalka ay aqoonsaday baa maxay tahay ka muhiimsan oo ka dhaqaale badan oo qaybaha kala duwan ee bulshada sida engineering aad barateen iyo biyaha beeraha waxyaabo badan marka waxaan rajaynaynaa iyagana inay insha Allah de khayr iyo wax wanaagsan aan ka filano in mashaariic iyo horumarino badan de waan dadaalayna insha Allah de madaxda dalkan waxaan soo jeedinayaa in la dhiirigeliyo madalaha noocan oo kala dhiirigelinaya caqabadaha guud ee dalkani ka jira in la saaro in ay noqon muuqaal yar oo inta meel ama research la soo saaray oo meel la iska tuuray iyagana dhalinyarada waxa ugu baaqaya in ay daabacaan oo goobaha bay bulshada ku kulanto in aad loo galiyo oo ay noqoto meel ay dad badan akhristaan de idinkana diilo iyo barbilow wanaagsan bay idin tahay kulli hadalkiina waan dheereeyay waan khayr iyo nimcaan idin rajaynayaa insha Allah